beesha kuumade in ay maanta ra'iisul wasaaraheena cusub ugu hambaliyayso noo suura geliyay inta Ilaahay ka sokaysa waan mahad celinayna walaalkeen dhaga weyn inta kadib anigu hadalka badin maayo beesha kuumade waa ra'iisul wasaarihii koowaad ee ay hesho maanta ay isugu timaado halkan inay u hambaliyayso ninkii doqorana hambaliyada maanta iyo qaabkan xafladan sida quruxda badan loo agaagsimay ninkii doqorana loo sheegi maayo ninkii wax garanayaan uu garanayaa hambaliyada iyo farxadda maanta naga muuqata aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub maxamed xuseen rooble waa ra'iisul wasaare Soomaaliyeed waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu wax fiican oo ra'iisul wasaarayaashii hore la yidhaaho waa ra'iisul wasaarihii ugu fiicnaa inuu sameeyaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu Soomaalinimadu sidii lagu yaqiinay dadku ka soo jeedo ay sameyn jireen lagu yaqiinay taariikhda waxa inuu sameeyo baan Ilaahay ka rajaynaynaa waxa leenahay Ilaahay xil culus baa lagu dhibay ha kuwa asuro annagoo beesha kuumadaana maanta farxadda aanu faraxsanahay mid la hilmaami doono ma aha waa mid adduunka meel walba maaragtay aanu muuqaalkeeda ka bixinayno aan cidna kala gabanaynin soo dhawow ra'iisul wasaare soo dhawow ilaahayna ha kugu asro xilkaaga meesha waxaa fadhiya beesha kuumade odayaasheeda ama waxgaradkeeda fadhiya waxay u soo jeedinayaan hambalyo intaan horta hambalyada gelin hambalyada ninkaan u jeedinayno waxa weeye ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya maxamed xuseen rooble yaa waxaan u soo jeedinaynaa hambalyo qof bina aadan oo nool oo ifka ku nool tii loo jeedin lahaa ta ugu qiimo badan baan u soo jeedinaynaa waxaan ku darayaa intaas qof la magacaabo oo Soomaaliya ma magacaabo oo beesha kuumada maanta uga kalsoobay badan ama uga farxad badan ma jiro ninka anaga kuumada ahaan beesha anaga kuumada ahaan madaxweynaha Soomaaliya Jubbaland waxbay ka sheegan jirtay wax weyn abaal buu noo galay maanta kol hadduu magacaabay maxamed xuseen rooble hadduu magacaabay waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in aan ninkaasi aan ku faraxsanahay taageersanahay ilaahayna waxaan uga baryaynaa in xilka uu u dhib yareeyo isagana waxaan leenahay kumaduhu cadaalad baa lagu yaqaanay dadka lagu xamanayo ee ama aad u dhalatay ama aad xiriir ka baleedihiin ama u dhalaama ha u dhalan waxba qarin maayo dad badan oo ku ka tirsan beesha kuumade yaa ku tirsanayo Soomaalina way ku tirsanaysaa karaamadanada inaad ku dheelin oo Soomaaliya aad xaq u qaybiso oo laga soo bilaabo Sayid Maxamed iyo subaxan saakeen taaganahay ninka kuumade korku kursi ku fadhiisto marka leexan waxba iska igu waxayna aniga ninkaas soo saaro xabirayaan aqligayga ninka kuumade korku kursi ku fadhiisto Axmed Madoobahan hadda la kari laayahay qolo walbo Soomaaliya kolkay gobolkeeda qabsatay inteeda anaga nagama rooray tiri Soomaali wax u qaybiya Axmed Madoobe sidaas Axmed Madoobe wax u qaybina Soomaali ugu qaybiso oo karaamada dad ummadda aad ka dhalatay iyo taad u dhalatayba aad ilaaliso oo caalanka Soomaaliya aad ilaaliso annaguna waan nagu talagasho waan kugu talagalaynaa waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa Maxamed Cabdul Jaamac oo ku magac dheer dhaga weyne maantana sidan u agaasimay xafladana u qabtay beesha kuumade asagana si gaar ah ugu mahad celinaynaa inta kadib waxa meeshan fadhiya waxgaradkii beesha kuumade ee joogay Jubbada Hoose degmada Kismaayo waxaanu si kal iyo laab ah oo kalsooni ah oo ehelnimo ah ugu hambalyeynaa mudane maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya hambaliyo gamco furan baan kugu soo dhaweynaynaa